أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan sii wadanaynaa darsigeena ku saabsanaa computer science-ka ama ku saabsanaa Java programming waxaan qaadanaynaa bal example-ka ugu horeeya example-kan ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa inaan qorno program ama barnaamij aqbalayo laba number labadaas number markaad aqbasho oo qofka userka ama qofka computerka isticmaalaya aad ka aqbasho kadib labadaas number marna waa isku daraysaa marna waa isku dhufanaysaa ama haddaad rabto ayagoo isku dhufsan iyo ayagoo isku darsan natiijadooda inaad soo saartaa la rabaa okay saan usoo saaraya marka okay kowda hore waxaan kusoo saaraynaa barnaamijkiisa aan naqaanay aan maalinka dhaweyta soo dejinay ahaa Eclipse kaasaan rangaraynaynaa marka hore Eclipse-ka markaad meeshaan timaado pagekan uu ku siinayo waxaa la yirahdaa welcome page marka cancel leh iska xir annaga marka waxaan rabnaa meeshaan inaan ku shaqeyno okay kowda ugu horeysa markaad rabtid inaad bilowdo programkaaga waxaa la rabaa kowda hore inaad marka hore samaysato projectiga inaad samayso kadib classka sii abuurto markaas kadib aad shaqadii koodkii aad qoraysa qorto kowda hore marka waxaan tegaynaa file kadib waxaan tegaynaa new kadib waxaan ka tegaynaa Java project tanaan kale ku siinaynaa wuxuu ku siinayaa windowgan marka meeshan waxaa ku qoraysaa project nameka annaga waxaan leenahay first program ay magacaad rabtaad aad u baxsan kartaa laakiin aniga waxaan u bixinayaa kan first program okay finish markiiba dheh hadduu kan kuu soo saaro adiga waxaad leedahay don't create ka dheh okay markuu meeshaas uu kuu soo saaro marka saad ujeeda hadda meeshaan folder uu kuu sameeyey folderkaas aad markaad tegaysaa folderka waxaad ku siinaysaa right click markaa ku siisa isaga waxaad kasii tegaysaa haddana new markaad tagtaa waxaad tegaysaa classkaasaad kale ku siinaysaa haddana wuxuu ku siinayaa windowgan marka waxaad ku qoraysaa classkaagii ugu horreeyey magaciisa aad u bixinaysa marka waxaan leenahay annaga waxaan iska dhahaynaa sum iyo product waxaad rabtaa aad u bixi sum product of two numbers waa dhihi kartaa annaga laakiin waxaan kusoo gaabsanaynaa intaan annaga muhiimadeena magacyada iyo maaha muhiimadeena waa koodka iyo wixii la qoray meeshaan markaad timaado classkan inta finish tiraahdid waa iska abuuri kartaa haddii kalena meeshaanaad xasiin kartaa meeshaan ay ku qoran tahay public static void main ayaad jaag garayn kartaa oo select garayn kartaa si uu methodkii oo kan uu watay uu kugula socdo classkaagii haddaad rabtana intaad finish tiraahdaa adiga hadhow gacan ku qoran kartaa aniga laakiin meeshaanaan kelig leeyahay finish aan leeyahay markaas okay saan hadda u jeedna meeshaan marka waa ujeedaa public static void waa kii maalin dhexdaas aan darsiyadii ka horreysay aan kaga hadalnay oo ahaa hadduusan wadanin classka markuu rangaraysmaayo ama wax uu ku soo saarayo male hadduusan la soconin kan okay marka meeshaan wuxuu kuu siinayaa comments ah oo meeshii aad wax ku qoraysay ah annaga waa iska tirtiraynaa iyada marka maxaan ka bilaabaynaa annaga waxaana la yiri exampleka sida ku qorneed waxaa la rabaa laba number isku darkooda iyo isku dhufashadooda marka labada number waxaana la yiri in userka uu soo geliyo computerka asaga uu labadii number uu qoro ayaa la rabaa markay saas tahay waxaa la rabaa marka ugu horeysa inaad dalabto class oo userka kasoo qaadaya numberada classkaas oo scanner lagu magacaabo oo Java classyadeeda ka mid ah inaad ku qorto suu u qoran yahay marka wuxuu u qoran yahay Wayne scanner saasaad u qoraysaa scanner okay xarafka ku xiga marka objectiga waaye objectigan adiga magacaad rabtid oo la bixi kartid aniga waxaan leeyahay in adiga waxaad rabtaad ka dhigan kartaa in waa dhihi kartaa iyo waxaad rabtaa waa dhihi kartaa wuxuu la mid yahay marka objectigaas marka newdan waxay ka dhigan tahay inaad new object inaad samaynayso ood abuurayso ayay ka dhigan tahay marka waxaan leeyahay scanner haddana markaasaan qaws furayaa marka
qowskan dhexdiisa waxaan ku qoraya marka system waxaan leeyahay dot in classkan marka waa classka mar walba ood qofka userka wax kasoo dalbanaysa java la rabo inaad qorto classkan marka saan hadda ujeedno meeshan wuxuu na siinayaa error ama khalad na siinaya macnaheeda waxay ka dhigan tahay scannerkan weli adiga meeshaadan aad ku shaqaynaysa ama packagekaagan ama projectigaagan lama soo dejinin oo lama soo gelinin see kusoo gelinaysaa marka adiga isagaasaad waxaad ku korsiinaysaa calaamadda saas fiiri haddaad rabto waxaad samaynaysaa waxaad dhihi kartaa meeshaasaad ku qoraysaa waxaan leeyahay marka import markaasa waxaan leeyahay java dot util dot markaasa waxaan leeyahay util sorry dot markaasa waxaan leeyahay scanner isagaa ku siinaya baata soo ma jeed scanner markaasa waxaa ku xiraysaa baashaas hadda waad ujeedaa calaamadii way ka baxday haddii kale laba weyb waad ku samayn kartaa saasna waa u qoran kartaa haddii kale waxaad samayn kartaa ayada dhan tirtir waxaad dhigi kartaa markuu khaladka kusoo baxo intaa isaga ku kor aadisa muuska calaamadiisa ama fallaarta inta ku kor aadisid waa kan dee uma jeeda meeshaana ku qoran yahay waa samayn kartaa keligaa ku siinaysaa wuu kuu qormaya dariiqo kaloo iyadana waxaa jirta ah haddii aad samayn karto waxaa la sameeyaa controller riixaysa horta waxaad kale ku siinaysaa linkigii khaladka uu saaraya ama aad rabtay inaad importka ku samayso markaasaad waxaad leedahay control iyo number one isla riixaysaa waxaa kuusoo baxayo saad u jeedid meeshan qaa'imooyinkan ay ku wada qoran yihiin importiyada badan ee scannerku khusaya annaga kan ugu horeeya waa kaan rabno markaasaad kale ku siinaysaa ama intraad leedahay wuu ku gelinaya okay kaas markaan dhameeyo qodobka ugu horeeyan qoraayo maxay tahay hadda waxaan qoray classkiyaan qoray objectigana waan tacriifiyey marka maxaan rabaa marka userka inaan message u qoro sheegayo inuu number uu gelin karo marka waxaan leeyahay system dot out dot print ln marka hadda messagekiyaan qoraya marka message waxaan u qorayaa userkii dhahayo waxaad soo gelisaa numberkii koowaad waxaan leeyahay enter number one okay markaan userkii messagekan u diro oo userkii uu numberkii soo gelinayo marka waxaan rabaa in numberkii inaan objectigaasi ku save gareeyo saan ugu save garanaya horta numberkan dalbanayo muxuu yahay anay ugu xiran tahay ma integer ah oo numberadan caadiga ah oo cadad iska bahalka iyo oonan jajab iyo waxba lahayna aday kugu xiran tahay mase mid jajaba midkay tahayba aday kugu xiran tahay laakiin ani hadda waxaan dooranayaa taasna mar kale aan ka hadli doonaa si u kala duwan yihiin marka anigu waxaan dooranayaa cadad saxiixan dooranayaa oonan jajab iyo roots iyo waxna lahayn waxaan leeyahay integer marka tan hadda iska ilaali haddaad ka dhigto capital ka dhigto ma noqonayo keywordskii java ay lahayd ma noqonayo marka waa inaad iska ilaaliso waxaa la rabaa keywordska java leedahoo dhan say u wada qoran yihiin inaad u qorto waxay u qoran tahay integer markaad qorayso int kaliya kasoo gaabiyaan marka waxaad leedahay int saas markuu calaamadaas noqoto waxaad ogaanaysaa markaas inuu yahay kiyadii ama furayaashii ay java isticmaalaysa markaan integer dhaho waxaan tacriifinaya marka integerkan waxaan aniga sheegay qaabkii uu egyahay numberkii aniga qof aan ka dalbanayay qofka userka numberka aan ka dalbanayo hadda waxaan meesha ku qoray inuu yahay cadad saxiix ah wax jajaba iyo wax xidida iyo waxaas uusan lahayn okay marka magacaan u bixiyo marka aan dhaho marka number one number aan kasoo gaabiyo marka waxaan leeyahay wuxuu la mid yahay waxaan soo qaadanaya objectigan ayaan soo qaadanaya waxaan leeyahay in dot next muxuu yahay marka numberka aan dalbanayo oon rabo aniga in objectigaas ita aan ku save garayo oon memorygii boss oga qabto aan rabo wuxuu yahay waa integer sooma int okay markaas waxaan furaya laba qows waan xiraya okay tiidan waa khaladka okay markaan tiida ka saarna waa ujeedaa weligaa waxaad aragtaa haddaad wax yar oo khalada geliso wuxuu kuu sheegayaa inuu meesha wax kaa khaldan okay marka userkii numberkii uu soo geliyey annaga numberkii waan aqbalnay bal intaan aan fiirina tijaabina bal intaan okay meeshan saa ujeedid maxaa userkii loo qoray enter number one numberkii waa kaasaa fiir markaan ani numberkii ku qoro marka meeshaan kale ku sii
numberkii markaan ku qoro wuu aqbalay computerkii wax kaloo ficila ma samaynayo ficilkii marka maxay tahay haddana aan rabaa ani inaan sii sameeyo waa inaan iraahdo marka aan la hadlo userkii haddana message kale u diro aan iraahdo geli numberkii labaad saan lahay sidoo kale system dot out dot print ln tan waxaan mar kalena waa ka hadli doonaa ln tan waxay ka dhigan tahay sadar cusub ku samee haddaad ln tan ka reebtana isla linekii un ku sameeyo linekan kusii samee haddaad ln ku dartana waxaa waaye sida hadda tan oo kale ln markaan ku daro meeshaanu ku qoray haddaana ll ku dari lahayn meeshaas ku qori lahaa okay saasay ku kala duwan yihiin messageka haddana u qoraya mar walba oo message qoraysid waa inay qoosaskana ku jiraan geedahana ay u dhexeeyaan haddaadan labadan gelinin waxaagi waxay noqonayaan ma soo baxayaan messageki marka muxuu yahay aan raba inaan u diro waxaan leeyahay marka enter number 2 sida hadaya aan ka dhigo number 2 mar walbana semicolon tabs waa inaad ugu dambeysiiso semicolon tan waa inaad ugu dambeysiiso meeshan hadda khalad uu ii sheegay waxaa iga maqan s ba iga maqan meeshaas okay kadib maxaan leeyahay haddana userkii wuxuu arkay haddana geli numberkii labaad markuu arko numberkii uu qoraya ani waxaan rabaa numberkii inaan haddana save garayo numberkaas sidii kii oo kale waa inuu integer noqdo adigu waan sheegay double jajaba waad ka dhigi kartaa wax kale waad ka dhigi kartaa waana arki doonaa laakiin aniga hadda markaan noocan sameynayo waa cadad saxiix haddana waxaan leeyahay integer number 2 wuxuu la mid yahay isagana waxaan memorygan boss uga qabanaya waxaan leeyahay objectiga wuxuu la mid yahay next integer intida fiiri tan waa inay capital noqoto ay ka bilaabanayso qosaskeen furaya waan la xiray numberkii labaad waa save gariyay ani marka maxaa laga rabaa hadda camaliyadii labadii number computerka uu save garay waxaa la rabaa marka in camaliyadii la sameeyo camaliyadii soo sameynaysaa numberkii koowaad iyo numberkii labaad isku daraysaa markaasaa natiijadoodii soo bandhigaysaa qofkii userka tusinaysa saa horta isugu daraysaa marka waa inaan sameeyo haddana variable kale waa inaan sameeyo oo aan labadan number haddaad rabta caadi waad u dhigi kartaa number 1 plus number 2 waad dhigi kartaa sida num 1 plus num 2 waad dhigi kartaa saas waad dhigi kartaa system output oo waad dhigi kartaa laakiin waxaa sida professional ama sida fiican ee saxda ah waa inaad tiraahdo waa inaad samayso variable kale oo kuu kaydiya waxaan oo isaga ku save garayso waxaan leeyahay marka integer result waxay la mid tahay number 1 plus number 2 hadda resultidan inta maxay ii qabanaysaa oo haynaysaa oo memoryga ay boss uga xijinaysaa labadii number isku darkoodi markaas ani waxaa soo bandhigaya waxaan leeyahay system dot out dot print line markaas waxaan leeyahay inta maxaan gelinaya marka waan hadda rabaa inaan soo bandhigo resultigi waa inaan soo bandhigo waxaan leeyahay marka result markaas maxay ii soo bandhigayaa marka wuxuu ii soo bandhigayaa labadii number uu isku daray natiijadoodii bal aan aragna marka kow userkia waxaa layidhi waxaad gelisaa number 1 waxaan geliyey number 2 haddana waxaa layidhi numberkii kale labaad geli 5 aan geliyey muxuu meeshan soo bandhigay 7 inay tahay waa haddii laba lagu daro 5 okay bal si professional oo xoogaa yar oo waxa la akhrin karaa bal aan u qoro meeshan maxaan leeyahay marka fiiri result of markaan intaas dhaho inta waxaan leeyahay weligaa waxaa ogaataa mar walba oo system java aad soo bandhigi rabtid waxyaabihii aad qortay koodkii aad qortay ama natiijadaadii aad soo bandhigi rabtid ood meeshan ku qoraysid mar walba waxaad qoraysid wixii kalood rabtid inaad soo bandhigto waa inaad balaas u dhexaysiiso soo fiiri hadda markaan tan ani waxaan iri result of ayadoo qoraal ay soo baxaysaa waxaan leeyahay balaas ani waxaan rabaa number 1 inaan inta ku qoro waxaan leeyahay number 1 haddana balaas calaamadeedii waa inaa iyadii balaas caadi waa inaa soo bandhigo sooma balaas haddana waxaan leeyahay number 2 kan number 1 balaas oo qoraal ahaan soo bandhigaya number meeshan marka meeshan numberta ku qoran tahay number 1 iima soo bandhigaya wuxuu ii soo bandhigaa numberkii userka uu siiyey kana number 2 wuxuu siinaya numberkii userka uu siiyey uu ku qoray meesha saasuu labadooda kusoo qoraa mid walba marka waa inaan u dhexaysiiyo plus tan plustan ayadoo plus caadi ay soo baxaysaa hadhow marka waxaa waaye waa number 1 plus number 2 equal oo ayadana qoysaskan ku jirto sorry ayadoo qoysaska ku jirta kadib marka tan ugu dambeysa
waa inaan balaas dhaho. Okay, tan waa inaan balaas, meeshaan balaasaan ka tegay, waa inaan balaas dhaho. weli meeshaana balaasaan ka tegay, waa inaan balaas dhaho. balaasyadan aad meesha ku aragto kama dhigna xisaab iyo wax la isku daray kama dhigna. Waxay ka dhigan tahay qoraalkan markaa soo saarto waxaad haddana ku xijisaa kan, haddana waxaad 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 ku xijisaa kan. saasay micnuhu tahay ee xisaab ahaan kama dhigna. oo meeshan hadda waxba iskuma xisaabinayso, iskuma darayso. tan waxay usoo saaraysaa result of number one lagu daray number two waxay la mid tahay result. aragna markaas uu usoo bandhigo. Okay, number one waxaan leeyahay 4, number two na waxaan leeyahay 5. Markaas fiiri result of number one meeshii ahayd maxaa ku bedelay 4, number two meeshii ahaydna maxaa ku bedelay 5. waxay la mid tahay. Okay, space aan rabaa inaan u dhaxaysiiyo kuwaan hoose isaga wada jiraan saan wada aragno. Space ugu dhaxaysiinaya waxa ugu dhaxaysiinaysaa kan qowskaas maaragtay bahalkaas ku jira bracketyada yaryar. space la iyada uu ku kala sameeyo markaas wuxuu kala yeelanayaa space uu kala yeelanaya. laakiin inta haddaad si walba space u siiso ood ka fogeyso marna ma kala fogeynayo. Okay, hadda marka si nidaamsan waxoogaa yar quruxsan u soo saaraya. Okay, waa 4 iyo 5 waxay la mid tahay kasa result of 4 plus 5 equal 9. ayi numberka uu geliyey userka hadda wuxuu ku soo saarayaa saas. Okay, marka ayagoo isku dhufsanaan rabaa marka waxaan leeyahay isla sidii oo kale waxaan leeyahay integer, waxaan leeyahay result 2 tii hore maadaama ay result 1 waxaan leeyahay number 1 times isku dhufasho times number 2. Okay, isla sidii inta waad u qori kartaa. haddaad rabto waxaad dhigi kartaa copy dheh tan inta ku base garay. marka meeshaan maxaan ku bedelayaa aniga ku darashada ahayd ku dhufasho. bas waa intaan waxaan rabo. result intana waxaan ka dhigayaa maadaama ay result 2 tahay tanna result 2. Okay, maxaa ii soo baxaya marka haddaan rangareeyo ayadoo isku dhufsan u siinaya iyadana. number 1 haddaan geliyo waa 2 iyo 3. saa ujeedi meeshaan marna wuu isku daray oo 2 lagu daray 3 waa 5, marna wuu isku dhuftay oo 2 lagu dhuftay 3 waa 6. haddana bal laba number oo kale aan gelino 10, lambarka kalena waa 5. marka la isku daro waa 15, marka la isku dhuftana waa 50. saasaan rabnaa inuu soo saaro. waa 10 lagu daray 5 waa 15, 10 lagu dhuftay 5 na waa 50. insha allahu marka darsigan intaasaan ku ekeenayna. galaasyo badan waxaan isku dayayaa inaan wax badan oo kaleeto soo geliyo. waqtiga aad cariiri igu ah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.